kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaasha qiimaha badan ku soo dhawaada Wajawa Media halkaad ka helaysaan warar sugan xogo sax ah iyo falanqeyn qiimo badan anigu waxaan ahay Cabdiraxmaan Wajawa waxaan idin soo gudbinayaa maanta qodobadii ugu door corona warkeena caalamka iyo dalka qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka labada aqal oo ansixiyay wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka xilli la diidan yahay taliyaha madaxweynaha Puntland oo Muqdisho lagu xiray ayaad wararkeeni ku maqli doontaan golaha mustaqbalka oo ka soo horjeestay wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka Jubaland oo iyana sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijada wax ka bedelka dastuurka ayaan idinku soo gudbin doonaa waxaad kaloo aad barnaamijkeena ku maqli doontaan gudoomiyaha cusub ee qurbo joogta jaaliyadda Puntland ee Minnesota oo la doortay qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena maanta kaga bogan doontaan u diyaar garooba iyagiyo faahfaahsan rabtaa inaad la jaanqaado xabaaraha dunida tiknoolajiyada baraadinaysa qalab tayo leh oo aad isku haleyn karto haddaba ku soo dhawow hadaf technology halkan waxaan kugu diyaarinay laptopsyo tayo leh mobilada ugu casrisan oo ila jiraan agabkooda shaashadaha waaweyn iyo dhammaan qalabka IT-ga aad ugu baahan tahay shaqadaada iyo gurigaagaba haddii aad tahay qof ku jira saaxadda warbaahinta gaar ahaan baraha bulshadu waxaan ku haynaa mikrofoono iyo qalabka studio-da oo dhammaystiran agab kasta oo IT-ya wixii qalab aad ugu baahato xafiis ama guri tayo caalami ah adeeg la isku haleyn karo iyo qiimo kugu habboon waa halka aad kaga iibsan karto qalabka electronics-ka hadaf technology xarunteenu waa Baydhabo agaarka Shaneem Shantraal asugin maanta soo booqo hadaf technology hirka tiknoolajiyada mustaqbalka hadafkeenu waa inaan kugu xirno mustaqbalka tiknoolajiyada nagala soo xiriir taleefanada shaashadaha kaaga muuqda baarlamaanka labada aqal oo ansixiyay wax ka bedel lagu sameeyay dastuurka xilli la diidan yahay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta Villa Hargeysa iyagoo si rasmi ah u ansixiyay cutubiyada 5 ilaa 15 ee wax ka bedelka lagu sameeyay dastuurka kaas oo lagu murunsan yahay kulankan oo shir gudoominayay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe ayaa lagu shaaciyay in 186 xildhibaan oo ka tirsan golaha shacabka iyo 37 xildhibaan oo ka tirsan aqalka sare mid kamid ahna uu ku codeeyay hab online ay ogolaadeen wax ka bedelka dastuurka gudoomiyuhu wuxuu sheegay in tiradaasi ay ka dhigan tahay in wax ka bedelku si sharci ah ku ansaxay xildhibaanada ayaa si wadajir ah ugu codeeyay wax ka bedelka lagu sameeyay qodobada 5 ilaa 15 ee dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya tilaabadaas oo qayb ka ah dib u eegista iyo dhameystirka dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka si kastaba ha ahaatee wax ka bedelkan ayaa wajahaya mucaarad xoogan in ka badan 70 mudane oo ka tirsan labada aqal ayaa si cad ugu soo horjeestay ansixinta cutubyadan sidoo kale siyaasiyiin mucaarad ah oo ay ka mid yihiin madaxda dowlad goboleedyada Jubaland iyo Puntland ayaa horey u muujiyay diidmo la xiriirta habka iyo nuxurka wax ka bedelka dastuurka arrintan ayaa la filayaa inay sii horiso doodaha siyaasadeed ee ku saabsan hanaanka dib u eegista dastuurka iyo sida loo xaqiijin karo wadatashi buuxda oo loo dhan yahay la taliyaha madaxweynaha Puntland oo xalay lagu xiray magaalada Muqdisho ciidan ka tirsan booliska oo la sheegay inay ka amar qaataan taliyaha booliska Asad Diyaano ayaa xalay xilli dambe Airport Hotel ku yaala garoonka Muqdisho ku afduubay Axmed Cabdi Hure Axmed ayaa la taliyaha madaxweynaha Puntland wuxuuna ka mid ahaa mas'uuliyiinta ay ka mid yihiin xildhibaano degnaa hotelka ciidamada booliska Soomaaliyeed ayaa sheegay inay soo xireen Axmed Cabdi Maxamuud Hure oo ay sheegeen inuu ka howlanaa fal amniga lidku ah booliska Soomaaliya ayaa xiray la taliyaha madaxweynaha Puntland Axmed Cabdi Maxamuud Hure booliska oo boggoodii Facebook ku faafiyay sawirka Hure ayaa ku eedeeyay inuu ka howlanaa fal amniga ka dhan ah Parisna ku socoto Hure ayaa laga soo xiray Hotel Airport hotel ku dhex yaala garoonka diyaaradaha Aadan Cadde sida ay noo xaqiijiyeen laba xildhibaan oo degan isla hotelka xalay saqdi dhexe tiro xildhibaanaha oo diidan meelmarinta dastuurka ee la ansixiyay oo xubno kale oo mucaarad ah ayaa la filayaa inay shir looga soo horjeedo ansixinta dastuurka ku yeeshaan isla hotelkan
xildhibaanada Puntland ee ku matala baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in lagu soo weeraray hotel ay ku degan yihiin Muqdisho oo aagga Xalana ku yaala. Xildhibaanada oo ah kuwii dhowaan laga celiyay Garowe oo weli ku xaniban Muqdisho ayaa sheegay in ciidamo dowladda ka tirsan ay goobta ka kaxaysteen la taliye sare oo ka tirsan xafiiska madaxweyne Deni. Xildhibaanadan ayaa diidan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya. Xiisadan ayaa sababtay kadib markii ay iscasileen laba wasiir dowle oo ka tirsan xukuumadda federaalka kuwaasi oo sheegay inay kasoo horjeedaan wax ka beddelka dastuurka. Xildhibaanada kasoo jeeda Puntland iyo Jubbaland ayaa intooda badan diidan wax ka beddelka dastuurka federaalka Soomaaliya. Dhinaca kale, war qoraal oo kasoo baxay taliska booliska Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen Axmed Cabdi Hure oo ku eedeysan inuu waday howlo lid ku amniga, inkastoo aanay faahfaahin ka bixin howlahaasi. Golaha Mustaqbalka oo kasoo horjeestay wax ka beddel lagu sameeyay dastuurka dalka. Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed oo ay ku mideysan yihiin siyaasiyiin mucaarad ah ayaa si rasmi ah uga soo horjeestay wax ka beddel lagu sameeyay dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, ayagoo ku tilmaamay mid aan loo marin habraac sharci oo waafaqsan qodobada dastuuriga. War-saxaafadeed ay soo saareen goluhu ayaa lagu sheegay in wax ka beddelka la sameeyay uusan marin hanaan sharciyadeed cad, isla markaana aan la helin aqlabiyadii dastuurku faray, gaar ahaan labada meelood meel ee labada aqal ee baarlamaanka federaalka. Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed waxay caddeeyeen in weli ay aqoonsan yihiin dastuur rasmi ah kii la ansixiyay sanadkii 2012, iyagoo ku dooday in dastuurku yahay heshiis bulsho oo aasaas u ah dowladnimada iyo wadajirka ummadda, isla markaana aan lagu beddeli karin rabitaan siyaasadeed oo cid gaar ah yeelata. Sidoo kale, goluhu wuxuu sheegay in wixii wax ka beddela ay tahay in lagu saleeyo heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay, wada-tashi qaran oo ballaaran, iyo hoggaansanaanta buuxda oo la siiyo habraacyada dastuurka ee dalka u yaala. Ugu dambeyntii, Golaha Mustaqbalka Soomaaliyeed waxay ku baaqeen in la ilaaliyo midnimada qaranka, lagana fogaado tillaabo kasta oo horseedi karta kala qaybsanaan siyaasadeed iyo khilaaf sharci oo sii muujin kara xaaladda dalka. Dhanka kalena, dowlad goboleedka Jubbaland oo sheegtay inaysan aqoonsan doonin natiijada wax ka beddelka dastuurka. Dowlad goboleedka Jubbaland ayaa ku dhawaaqday inaysan aqoonsan doonin natiijo kasta oo kasoo baxda hanaanka wax ka beddelka iyo dhamaystirka dastuurka ku-meel gaarka ee Soomaaliya, iyadoo ku doodeysa in geedi socodka socda uusan ku dhisnayn heshiis qaran iyo wadatashi loo dhan yahay. War-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada Jubbaland ayaa lagu sheegay in kadib wadatashi ay yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala Jubbaland, mas'uuliyiinta dowlad goboleedka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada, ay Jubbaland go'aansatay inaysan ka qayb qaadan tillaabooyinka lagu wado wax ka beddelka iyo dhamaystirka dastuurka. Jubbaland waxay sheegtay in jidka loo marayo dib u eegista dastuurka uu ka baxsan yahay habraacyadii iyo heshiisyadii hore loogu dejiyay arrintan, isla markaasna uusan ku dhisnayn is-afgarad siyaasadeed oo ballaaran. Sida lagu xusay war-saxaafadeedka, qaar ka mid ah xildhibaanada Jubbaland ku betela baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa si wadajir ah uga maqan dhammaan geedi socodka iyo habraacyada la xiriira wax ka beddelka dastuurka, taasi oo Jubbaland ku tilmaantay mowqif rasmi ah oo ay kaga fogaanayso natiijo kasta oo ka dhalata hanaankaasi. Dhanka kale, Jubbaland waxay sheegtay inay diyaar u tahay ka qaybgalka wadahadal qaran oo lagu gaaro heshiis ku saabsan arrimaha dastuurka iyo doorashooyinka, si loo helo hanaan sharci iyo mid siyaasadeed ay ku mideysan yihiin dhammaan dhinacyadu. Hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli la ansixiyay kulanka wadajirka ee labada aqal ee baarlamaanka, laguna ansixiyay cutubyada 5 ilaa 9 ee wax ka beddelka iyo dhamaystirka dastuurka Soomaaliya. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda qurbo-joogta Puntland ee Minnesota oo la doortay. Gudoomiyaha cusub ee jaaliyadda qurbo-joogta Puntland ee Minnesota, Puntland Diaspora of Minnesota, ayaa loo doortay Marwe Faadumo Ibraahim Aadan Malta, waxayna ku guuleysatay doorashadii ka dhacday Minneapolis. Doorashada gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee Minnesota, xogaha laga helaya waxay sheegayaan in musuqmaasuqu hareereeyay, balse si hoose looga gudbay, iyadoo la diidayo in sumcad xumo ku timaado magaca weyn ee jaaliyadda Puntland. Suldaan Maxamed Keynaan, gudoomiyihii hore jaaliyadda, ayaa helay cod gaaraya 98 cod, halka gabadha Faadumo Ibraahim Malta ay heshay 97 cod. Waraaqaha codbixinta qaar oo si hoose looga dhiibay wakiilka tirinta codadka Faatima
buuq ayaa ka dhashay balse waxaa tanaasulay oo mas-uuliyad qaatay wasiir Suldaan Maxamed Axmed Keynaan. Jaaliyadda Puntland ee gobolka Minnesota ayaa u muuqata mid ku dadaalaysa sidii bulshada lasu keeni lahaa. Gudoomiyihii hore Dr. Keynaan ayaa guddiga jaaliyadda uga baaqay inay la shaqeeyaan gudoomiyaha cusub Fatima Ibrahim Malta. Wakiilka Puntland ee dalka Mareykanka Marwo Mulki Cabdisamed Xaaji Xuseen oo soo dhiibatay codkeedii ayaa ka warantay dareenkeedii sida uu yahay. Fatima Ibrahim Malta ayaa si rasmi ah loogu doortay gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka kadib doorasho qof iyo cod oo ay ka qayb galeen xubnaha jaaliyadda. Fatima oo ka mid ah hablaha firfircoon ee aqoon-yahanada reer Puntland ee ku nool qurbaha ayaa ku guuleysatay doorashada, waxaana lagu ammaanay dadaalkeedii, kartideedii hogaamineed iyo kaalinta ay ku qaadatay horumarinta midnimada iyo wadajirka jaaliyadda Puntland. Guud ahaan waxaan halkan kusoo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen waa Jaba Media. Tan iyo kulanti dambe oo xiise leh, nabadgelyo.